Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh igu xiran sidee tiin mii fiicantiin xaaladina ka warama aan waa idin wanaagsanahay kasoo dhawaada video cusub subax wanaagsan subax ay noo tahay caafimaad baa kusoo kacnay idinka ma nabad qabtaan ma caafimaad qabtaan markaan soo toosay cabaar kadib baa waxaan sameeyey koob shaaxa baan soo samaystay oo green tea ah kii baan soo qaatay halkan baan kaabada guriga la fadhiya ma fahanteen saaka waan cadceedsanayaa cadceedaan isku dhigayaa baryahan oo dhan cadceedis maanaan arkin marka saaka igu qabatay bal inaan cadceeda aan isku yara dhigo oo dee keligii aan fadhiisanin koob shaaxan aan lasoo fadhiisto soo halkan baan shaaxayga yaraa kusoo cabay aan kusoo cadceedsaday kadibna waxaan sameeyey jikada ayaan soo galay waxaan rabaa inaan quraac yar kasoo tuurto marka maqliyaan dabka soo saartay saliid baan kusoo shubay kadibna kalluun yar oo aan xawaash iyo basbaas iyo wax soo marmariyey baa maqligiisa ujeedana aan kusoo ritay oo dee kalluunkiiba halkan ku shiilaya marka waxaan sameynaa kalluunka horta 6 daqiiqo baan shiilayay ahayd waqti ahaan marka hal dhinac markuu u yara casaado dhinaca kale xabad xabad uu ku rogayaa si ay mid walba geesaha ay si fiican ay uga casaato ma fahanteen waxaan jeclay kalluunka inuu yacni aan u shiisho marka waxaan rabaa insha Allah inaan shawarma yar kasoo tuurto marka that's why aan kalluunka sidan ugu sameeyey marka marmar nin maqligaan ku samaystaa kalluunka haddaan shawarma ku daraayo marmarna ofinka soo maanta dee maqligii aan ku samaysanayaa bay ahayd soo cabaar yar kadib waan isku wada walwalaaqay ahayd kalluunkii gees walba imika wuu kasoo shiilmay saasuu diyaar iigu yahay marka waxaan soo qaatay blade kalluunkii aan ka guray ahayd maqligii oo bladekii aan ku wareejistay marka maqligii saliidii aan kasoo kala masaxay kadibna waxaan soo qaatay roodhida la dhaho toortilada oo shawarmooyinka waxaas laga sameeyo tii aan maqligii hal gees aan kaga diiriyey kadibna geeskii kale aan u rogay dabkaan ka damiyey ahayd kadibna waxaan sameeyey cheese baan ku shubay toortilada korkeedii kadibna hal dhinac oo toortilada kamid ah waxaan saaray saa ujeedaan waa salad iyo waxa waaye tamaandhada oo saladhkii waxaas lagu darsado iyo waxaan saaray soos yar tanduuri maayo soos la dhaho aad u macaan geeskii kalena kalluunkii aan soo shiilnaan ka saaray saa ujeedaanba kadibna korka waxaan kaga sii daray cheese ah kadib dabkii aan u shiday markii aan yar dareemay inay shawarmadii inay toortiladii dhinaca hoose ay kasoo yara casaatay waan isku soo rogay toortiladii soo saas ayay diyaar iigu tahay shawarmadeedii waa shawarmo yaroo aad u fudud oo maqliga korkeeda waxa dhan loogu dhammaystiraayo lagu sameynaayo oo laalaab dambe iyo wax kale iga dooneynin soo waxa weeye quraacdeedii aan saas kusoo diyaarsaday halkaas waxaan kusoo shubtay koob liin macaan weeyaan shawarmadeedii ka gaarsiiskii ahaydna saanay kusoo baxday yaa haddaa maqliga korkiisa kusoo wada habaysid iyo haddaa dhulka kusoo habaysid waa same only oo isku mid isku dhadhan un bay soo baxaysaa marka waa kaasaa dhexdaan ka kala jaray balse aan idiin tusa dhexdeedu say u eg tahay dhexdeedii saasay kusoo baxday kalluunkan waa idinka iloobay kalluun wuxuu ahaa oo jiir keliyaata ah oo bilaa lafa marka waa kaasaa waxa waaye saas quraacdeedii ay diyaar iyo badh igu tahay marka dee waxaan sameeyey ahayd koobkaygii liin macaanta ahaa iyo halkaygii xabbe shawarmada ahayd aan isku cunay aan ku enjoy gareeyay ahayd aan ku quraacday soo markaa hadda soo quraacday kadib waxa waaye shaqada guriga ii taalo inaan iska qabto maadaama energy fiican aan helay marka shaqadii maanta waxa ka bilaabay ahayd qolkaygii waatana sariirteedii yareed nafarka ahayd sariirtii aan yara kala habeeyey ahayd oon yara geegeejiyey kadibna barkimadan aan soo qaatay oo aan galka ka bedelaya marka gal cusub baan geliyey barkimada waa barkimada aan ku seexdo marka galka hore saliidii wax iga mareen oon ka saaray ahayd gal silki ah baa igu jiray marka galkan caadiga aan iska gashaday ay ahayd adi sariirtii aan kala yaraha habeeyey barkimooyinka wixii oo dhan aan kala tuutuusiyey waan geegeejiyey kadibna cadarkayga yaraaye guryaha ee saadadka la dhahaan soo qaatay ani cadarkaas aan jeclahay caraftiisa oo aan ku buufistaa gurigeyga xitaa markaan hindiya joogay saas aan ahaan jiray kii aan daahyadii iyo sariirtii wixii ku buufiyey meeshii aan iska fiiqfiiqan iska masmasaxay ahayd waan iska fiiqfiiqay ahayd kadibna way kana hadda masaxaya marka way kana qolkayga yar baa masaxaya waa cidhiidhi alaab badan baa taalo ma fahanteen marka halkan qolkiina aan ku tirtirtay ahayd waxaa waaye maanta productive baan iska dhigaya yacni qof oo hawl badan qabtay maalmahan oo dhan salaanka waan ka yara dhacsanaa ma fahanteen waxba iga haystay shaqooyinka oo dhan youtube-ka xitaa fiidiyoyo badan ma soo gelinin labadii wiiga u dambeysay caajis baa i saaranaa yacni ma aqaano wax weyn baa iga khaldanaa marka maanta waa aniga isjafjafaayo oo waxa waaye guryo iska hagaajinayo oo waxaan ku idhahday awal anigoo
isjiidayo oo aan dhaqaaqi karinin baan shaqada qaban jiray ma fahamtay. Laakiin alxamdulillah maanta anoo faraxsan baan shaqeynaya videona idin duubaya. Ani xitaa waan u xiisay walahi inaan routine iyo waxyaabahaas idin soo duubo because moodkeyga ii saxaan oo maskaxiyan baan happy u dareemaa markaan video soo duubo aan idiin soo geliyo. So yaan hadal idinku daalinayni baadkii aan soo galay ahayd daawadeedii yareed ee xarbika ahayd oo baadkii waxaas lagu meydhaan meel walba kaga shubay ahayd bahalkan fadhiga lagu fadhiisto. Kadibna burush baan soo qaatay korkoo dhan baan burushkii aan kaga masaxa waa burushyada weelka oo kale. Korkoo dhan aan kaga tiray gudihiiyan waxa waaye aan ka nadiifiyey kadib waa kaasaa haddana dee waa xalxaleynaya ma fahanteen oo biyaan ka raacsiinaya daawadan ku maydhay bilaa gloves-na waan ku maydhaa ani mar walba waxaasaan ku xumahay mar walba bilaa gloves aan ku shaqaystaa ma fahanteen dhulkii aan iska tirtiray meeshan biijiidka iska raaciyey adii baadkiina waan iska soo nadiifiyey ahay marka waxa waaye videoga horta taa halka isla soo gaarnay fadlan like ii saara asxaabtiina ila sii share gareeya si asxaabtiina oo kale u qurux badan iigu soo xidhmaan insha Allah soo baadkii wixii markaan soo nadiifiyey kolleyba shaqo badan meeshan igama taalle baa waxaan sameeyey ahayd waxaan soo qaatay sharabaado iyo gacmaha la gashto gloveska ah waxaan rabaa maadaama waan dawiye waxaan kusoo dhaqdhaqay guryaha gacmihiiba i qallafa markaan dawooyinkaas bilaa gloves aan ku sameeyo ku tirtiro guriga marka guriga mar walba tirtiro waxaan sameeyaa kareemka yaroo body butterka la dhaho natural body butter baa la dhahaa waxa waaye waxaa loogu talagalay dadka jirkoodu qalalan yihiin iyo dadka jirku dildilaacaan oo uurka iyo waxyaabahaas buu baabi'iyaa marka jirku qoyaan kuu siinaya hadduu qaleylkaa yahay marka dawiye waxaas markaan guriga ku tirtiro ay gacmuhu iga qallafaan kaasaan horey ka marsadaa marka waxaan sameeyey ahayd kiyaan soo qaadaa xoogay horta lugaha waan soo hormarsaday sidan oo kale aan iminka idin tusinayaan u marsadaa xoogay aan soo qaadaa gacmahan saas isugu duugaa ma fahanteen kadib markaan isugu yara duugo kareem badan baa ii marsan saa ujeedaanba markaas waxaan sameeyaa sharbaadadeeda aan gashtaa amba golofisyadeeda aan gashadaa ma fahante weliba waxa kasii fiicnaan lahayd anoo golofisya baca intaan gashto kuwana kasii dul gashto laakiin waan necebahayo kuwan keliyuun baan gashtaa marka kuwan markaan gashto saacadan saa ugu joogaa gacmihii iyo lugihii ii huuraayo qalafkii iyo daamishkii dawooyinka wax ku masmasaxaayay ay ii geysteen baa iga ba'aayo gacmahana uu ii nuuriyaa marka caadi ahaan marmar waxaan u isticmaalaa looshin ahaan marmar kalena sidana isugu radiyaa ma fahanteen marka waa kaasa saacadan ku joogaa kadib baan dee caadi aan iska furfuri doonaa golofsyadii sharbaadadii waxyaabahaas marka waa kaasaa soo dee videoga maanta waxa waaye intanaan kusoo ekeynaa insha Allah I hope videoga inuu idin qancin doono aad ka heli doontaan videoga haddaad ka heshaan like ii saara asxaabtiina ila sii share gareeya intaan videoga ku xiga ka kulmayno waxaan idin leeyahay maca salaama bye bye see you soon insha Allah